muqdisho waxaa ku nool in ka badan 3 milyan oo qof caasimaddu waa mid aan la saadaalin karin iyadoo ay jirto qatar amni waxaa jira hal shay oo ku dhawaad 99.99 boqolkiiba la isku haleyn karo waa bixinta qadadaada macaamiisha ayaa rajeynaya in ka badan inta maqaayadaha caadiga ah ay ka helaan oo waxay doonayaan inay ka kaaftoomaan cunada ay guriga u doonanayaan amaba maqaayadaha oo ay u noqoto mid albaabka loogu keeno dadku hadda waxay filanayaan in ka badan inta ay qaadanayaan Safari Meals waa hal shirkad oo isku dayaysa inay taasi samayso waxay bixisaa adeeg cunno laakiin ah hab ka duwan midka aad garanayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad ku xiran tahay internetka kadibna aad mobilkaada ka dalbato adeegga aad doonayso wallahi baahi aad weyn goos magaalada waa taqaan laba qayb oo kala qaybsan tahay maqaayadaha wax u badan maqaayadaha cuntada macaan wax u badan hal area marka magaalada hadda meelaha laga soo dalbadana talabaadka ugu badan ee ka yimaada waxa kamid ah magaalada fog oo aysan u dhaweyn dadka waxa u fududeeyay marka qofka intuu soo bixi lahaa waqti uu ka dhumi lahaa maqaayad u yimaado leen oo gali lahaa waxa u fududeeyay marka inuu soo dalbado anaga gurigiisa uu geen asoo meeshiisa joogo asoo waqti uusan ka dhumin qofkaas macaamiisha ku xiran shirkaddan ayaa markay internetka ka soo dalbadaan waxay u diyaarinayaan adeegooda kadibna ninkan dhalinyarada ah ee mootada la ordaya ayaa qaadaya una geynaya macmiilka qiimaha waxa uu dalbaday qofku wuxuu ka ogaan karaa mareegta shirkadda ka hor inta aan wax dalban si online ah ayuuna ku bixinayaa lacagta aad iyo aad waa waqti aad iyo aad munaasib u ah maxaa yeelay waxa waaye jam badan iyo shaqadii aad u badan waxay keenaysaa inaan cuntadii aad waqti u weyso cuntadii waqti inaad u weydo aad banaanka aad ugu baxdo aad u weyso sidaa daraadeed ma sha Allah aadan ugu faraxsanahay in gurigeyga meeshanadii ay shaqadii goobtii shaqada lagu soo adeego aad ugu faraxsanahay in kasta oo dadku aysan si saa'id ah ula qabsan adeegan waxaa shaqaalahan ku horgudban dhowr caqabad waxaana ugu badan sax ahaanta tilmaamta oo mararka qaar adeegga iyo macaamiilka la isku raadiyo laakiin shaqaalahan waxay rajeynayaan in tani laga dhaxlo khibrad lagana gudbo adeegan qofka asoo booskiisa joogo ay loogu geeyo asoo isdhibin oo booto ka raacin oo dib kala galin inkastoo aad magaalada ku cusub dadku way qabsan doonaan mar kasta oo horumar ganacsi oo si xawli ah ku socda la dareemo waa mar kasta oo caasimadda xagga amniga isbedel ku imaanay waxa dalka dib ugu soo noqonaya dhalinyarada Soomaaliyeed oo wadanka dibadiisa ku maqnaa muddo fara badan kuwaas oo hadda horumar ganacsi ka sameynaya caasimadda waxaanu sugnaa sanadaha soo socda iyo caasimadda oo horumar inta ka badan sameeysa Nasr Maxamed Cabdi Universal TV Muqdisho